السلام عليكم داوديال kusoo dhawaada muuqaal cusub inta aynaan bilaabin muuqaalka waxaanu ka codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto sidoo kalena aad share gareyso una gudbiso saaxiibadaada waana sheega kanaalka dhiirigelin u noqon doona maanta waxaynu ku noolnahay raaxo iyo reereen aan hore loo arag hore uma dhicin basharku helaan waxaynu haysano ee ah science technology iyo waxyaabaha dadku isticmaalaan inay ku raaxaystaan ama ku xaragodaan sida gawaadhida moobilada dhismayaasha dhaadheer diyaaradaha iyo kuwa kale oo badan dabcan bilowgu waxa uu ahaa sayniska oo toobiyaha u jeexay asaaska iyo ikhtiraaciyada waxyaabaha aynu maanta ku naaloonayno oo dhan sidoo kalena soo koobtay waqtigii badnaa ee ay qaadan jireen in wax cusub la sameeyo uma baahanayno inaynu dib taayirka u ikhtiraacno oo aynu ka soo bilowno eber waxaynu ka sii wadaynaa wixii aabayaasheen iyo awoowayaasheen hore u sii qabteen markaas ayaynu ogaanaynaa in 200 sano u dambeeyay ku xaqiijinay laab wixii bani'aadanku ikhtiraaceen tobannaankii kun sano ee la soo dhaafay waxa laga yaabaa waqtigan aynu joogno horumarka aynu sameynayno hal maalin inay u dhigmaan wixii 100 sano oo tagay lagu qabtay laakiin ka waran hadii la inaga qariyo mar qura lafdhabarta nolosheena cusub ee digitalka maxaa dhici kara hadii hal mar sikadiisa la waayo korontada dunida oo dhan waayitaan aan soo noqosho lahayn maxaa dhici kara xaaladan la yaab kale oo kale ugu horreyn qaybta saamaynta ugu weyn soo gaadhayso waa suuqyada saamiyada elektarooniga ah isla markuu sida u go'o dabka korontadu waxa si toos ah u burburi doona suuqyada saamiyada ilbiriqsiga kooban oo kaliya ay aadamaha oo dhami khasaari doonaan $10 bilyan hantiya waxa ku dhex qarsoomi doona balaayiin agabka adeegyada elektarooniga qabta ee dansan hanti aan la suuraysan karin waxay musiibadan si baan u saameyn doontaa fiilka caafimaadka waxaanu si kadisa ugu noqonaynaa daaweyntii qacan qabashada dadka ee 1800 oo ma jiri doono qalabka sawirada jirka ee X-rayga iyo laserka qaliinada si fudud loogu qabto waxay noqon doonaan shaashadaha iyo kombiyuutarada shaybaadhka iyo la socodka isbedelada bukaanku kaliya gobolo plastic iyo bir ka samaysan kadib markuu istaago injiinkii ka shaqaysiin lahaa oo ku shaqaynayay awoodda korontada waxa la waayi doonaa shabakadaha isgaarsiinta agabka warbaahinta iyo shabakada isku xidhka ee internetka taasoo kicin doonta mowjado shaki iyo cabsi ah oo ku dhex faafi doonta shucuubta caalamka oo dhan waxa soo bixi doona kutirikuteyno fara badan waxa faafi doona been abuuro dadka qaar ka mid ah ay sameyn doonaan waxa xigi doona xaalad foodo iyo cabsiyeed dadka qaarkood waxay rumaysteen inay tahay dhamaadkii dunida qaar kalena waxay ismoodsiiyeen in wadankooda lagu soo qaaday weerar nukliyeer ah bar kalena waxay keenayaan waxyaabo aad loola yaabo oo ay maskaxdooda iyo khiyaaligooda ay ka alifeen sida in dhulka lagaga soo duulay hawada sare ama ay mushkiladu ku timi qaabsamayska adduunka oo uu noqday meel aynan ku sii noolaan karin kadib fowdada iyo qaska aadamaha soo wajahay waxa bilaabmi doona boob iyo dhac dunida oo dhan ka dhacaya burcad ayaa maamula samaysan doonta dadka booba oo dhaca iyaguna dhexdooda ku tartamaya awoodda midba midka kale ay ku burburin lahaayeen waxa la arki doonaa laamaha ammaanka iyo militariga oo wadooyinka buuxdhaafiyay iyagoo isku dayay inay xakameeyaan rabshadaha ka bilaabmay dunida oo dhan laakiin waxba ma soo kordhin doonto waana ku guuldarraysan doonaan sugidda amniga kadib markii la waayay isgaarsiinta ma jiri doonto kala sarreyn go'aan qaadasho ee ay suuro gelin jirtay shabakadaha isgaarsiintu oo haddaad maamulo tahay waxaad amri kartaa inta uu codkaagu gaadhayo oo kaliya taasoo keeni doonta in laamaha ammaanku ay isku bedelaan maleeshiyad hubaysan kuwaasoo isku dayi doona inay xaaladda ku dejiyaan sida uu arkayo hogaamiyahoodu inay sax tahay kadib xukuumadaha caalamka oo dhan ayaa baabi'i doona oo la waayi doonaa kadib maalmo ama toddobaadyo waayitaanka awoodda korontada waxa yaraan doona cuntada adduunka oo dhan iyo caafimaadka oo ay adkaan doonto in la helo wax lagula tacaalo bukaanada kala duwan ee dunida waxa bilaa qiimo noqon doonta lacagta oo dhan waxaana dunida dib uga bilaabmi doona habkii qadiimiga ahaa ee kala bedelashada alaabaha oo midba midka lacagta lagu bedeli doono kadib markii la dhacay dhammaan bakhaarradii iyo stoordadii lagu kaydin jiray raashinka waxa la isku layn doonaa wixii hadhaama ciishadeed ah ee la arko waxa la arki doona dagaalo ka bilaabmay Jabrodia ama Kobia oo dad boqolaal kor u dhaafaya ay ku nafwaayaan waxay bilaadanku khasaari doonaan malaayiin cilmi baarisyo saynis iyo ikhtiraacad ah kuwaasoo ku kaydsan maskaxda agabka elektarooniga ee dansan kuwaasoo noloshooda wax badan u faa'iideyn jiray waxay magaalooyinka waaweyn isku bedeli doonaan kaymo ka samaysan shamiito iyo bir waxay dad badan arki doonaan markii u horeysay muddo sanad ah samada habeenkii iyo quruxdeeda taasoo yara ilowsiin doonta dhibaatada waqti xaadirka haysata
intaa kadib waxaa bilaabmi doontaa marxalad cusub oo adag taasoo ah marxaladda la qabsiga jawiga iyo xaaladda cusub ee adduunku galay waxaana bilaabmi doona isku dayo fara badan oo lagu doonayo in dadkii shooku ku dhacay dib loogu soo celiyo nidaamkii bini'aadantinimo ka hor helitaankii korontada dabka waxaa bilaabmi doona nidaamyo diktaatori ah kuwaasoo mid walba xaynta yar ee taageerada u ah u soo dhicinayo waxa ay cunaha marin lahaayeen si kastoo ay ku soo heli karaan iyagoo kaga bedelanaya inay adoonsadaan oo ay sida ay doonayaan ugu tagrifalaan waxay shucuubta caalamku bilaabi doonaan inay kooxo yaryar u qaybsamaan oo mid kastaaba u hirdamayo inay maalinta ku xigta noolaadaan waxa kale oo la arki doonaa wadamo yaryar oo dimuqraadi ah oo ay ku buhoobeen dad aqoon-yahan iyo waxgarad ah oo ay ku hadhay qayb bini'aadanimo ah kuwaasoo ku dhisan inay iscaawiyaan oo caalamka kala dabaashaan dhibaatada qabsatay sidoo kalena baraanqaabka ay ugu noolaan lahaayeen duruufta cusub ee bilaabmatay waxay dib u bilaabi doonaan beerafalashadii warshadaha gacanta lagu sameeyo oo dadku hilmaameen ileen muddooyinku u dambeeyey mashiinno elektaroonig ah oo loogu talagalay ayaa u qaban jiray si ay uga helaan waxay u baahan yihiin oo dhan cunto iyo caafimaadba sidoo kale waxay baran doonaan qaabka ay iskaga difaaci karaan bulshooyinkii kale ee ku noolaa dhaca boobka iyo xatooyada dadkan ayaa iyagu noqon doona bu'da nolosha cusub ee bani'aadanku galay halka kuwa kalena ay noqon doonaan sida dugaagga basharku ka boqdo oo kale laga yaabo intooda badanina inay u dhintaan cunto la'aan mujtamacaadkan cusub ee dimuqraadiga way iswada raaci doonaan si ay u samaystaan hogaamin cusub oo xal iyo afkaar isbedel u keeni kara mushkiladahooda waxay bashariyaddu baran doontaa inay ku kalsoonaato bini'aadanimadeeda mar labaad waxayna ku kalsoonaan doonaan waxay u arkaan badbaadadooda iyo noloshooda marxaladda taagan sida beerashada farsamooyinka asaasiga ee alaabaha iyo daawooyinka qaarkood dharka ay xidhanayaan iyo waxay ku safrayaan waxa laga kaaftoomi doonaa oo hawada laga saari doonaa waxyaabaha aan faa'iidada u lahayn oo dhan sida wax kasta oo dadku u samaystay raaxo iyo inuu ku baashaalo waxay bilaabi doonaan nidaam waxbarasho oo cusub kaasoo munaasib ku ah wakhtiga la joogo oo qayb ka noqonaya xal u helidda la qabsashada xaaladda cusub waxbarashadaas oo xirfadaha farsamada gacanta iyo beerashadu ay kow ka yihiin sidoo kale daryeelka caafimaadka oo noqon doona waxbarashada qura ee saddexayn doonta wuxuu wakhtigu socdaba waxay dunidu iska iloobi doonaan muddo yar dhibaatooyinkii ba'naa ee soo maray siday u iloobeen dagaaladii iyo xanuunadii safmareenka ahaa ee hore u soo maray oo kale waxay geli doontaa dunidu sidii bilowgii horumarka jiilkan hadda adduunka ku nool oo kale waxaa dhalan doona jiil cusub oo maskax fayow oo aan weligood telefishinka moobilada casriga iyo internetka aan arag waxaa ku adkaan doonta inuu fahmo waxa uu yahay internetku waxaa soo noqon doona kitaab qoraalka si uu soo ceshto waayihiisii wacnaa mar labaad ayaynu wax akhriyi doonaa waxaynu dib ugu noqon doonaa cawaysyadii xiisaha lahaa ee aynu la qaadan jirnay qoysaskeenna iyo asxaabteenna waxaynu baran doonaa runsheegnimada waxaynu mar labaad isula sheekaysan doonaa foolka fool marka aynu wada hadlayno beddelka moobilada hadda ina mashquuliyey inta lagu guda jiro musiibadan xanuunka badan waxa dhiman doona malaayiin ama balaayiin dad ah waxayna caalamku u sii kala darnaan doonaan sidii marka hore ay u kala horumarsanaayeen oo wadamada dunida koowaad ayaa aad ula silci doona dhibaatadan musiibadan qosalka iyo oohinta badani waxay cashar adag u noqon doontaa bani'aadanka isbedbedelka ayaamaha kadib waa bila'aadan oo iska iloobi doonaan musiibadan oo dib ayay u wareejin doonaan taayirka ikhtiraca